السلام عليكم كلنتي wanaagsan kusoo dhow muuqaalkii shanaad oo ka mid ah casharadii bilowga Photoshop-ka muuqaalkan waxa kaga hadli doonaa hadii la yiraahdo waxa loo yaqaan layerska ama waxaan ku shaqeyn doonaa layerska markii aad bilow tahay waxa muhiim ah ama in badan qofka laga maarmaan ah inuu wax badan ka ogaado waxa loo yaqaan layerska iyo qaabka ay u shaqeeyaan waana base-ka Photoshop-ka oo waayo Photoshop wuxuu isticmaalaa layer based editing system wax loo yaqaan marka inaad focus-ka saartid oo muhiimad gaar ah ay ku yeelato layerska iyo qaabka u shaqeeyaan waxay ku fududeynaysaa in hadhow ay shaqadaadii ay si dardar leh kugu socoto ama hawsha aad ku qabsan lahayd ay ku noqoto wax ku fudud marka si aan u bilowno waxaan soo furaynaa faylkii aan ugu talagalay tutorial-kan saa usoo furtay marka waxaad tagaysaa file dan waxaad tagaysaa open waxaad kasii tagaysaa documentigii ama folderkii Photoshop tutorial ku jiray waxaad ka doonaysaa qaybta kooda introduction wali ku jirnaa waxaad kasii dooranaysaa working with layers dan waxaad ka doonaysaa fileka ay ku qoran tahay layers open baa dhahaysaa open dabcan markaad dhahdo waxaad kusoo furmaysaa file qaybka u eeg oo intaa wax ka kooban yahay saddexda waxaan ku dhahday walax saaran yihiin tufaaxda ay dalada ay maxaa ku dhaca caleenta kale dabcan markii layers laga hadlayo layersku waxa weeye aasaaska wax loo yaqaan Photoshop maadaama ay isticmaasho wax loo yaqaan layer based editing system file kasta ama shaqo kasta oo aad qabanaysid waxay ku base garaysan tahay layerska layerna wuxuu ka dhigan yahay lakabkaasi waxa weeye waxa sameynaya ama abuuraya documentiga halka saaran hadduu hal lakab yahay hadduu shan lakab yahay intaba waxa sameynaya oo marka inoo muujinaya weeye marka haddaan soo furay filekeeni waxaanu ka muuqda dhinaca layer panelka layerska da fiirisid wuxuu ka kooban yahay filekeena ama documentiga halka inoo ku jira dhowr layerada waxa kamid ah waxa loo yaqaan daladaas oo qoraalkaas textiga waxa kale oo ku jira caleen oo halka muuqateeduna waxa kale oo la socda daladii caadiga ah sawir ahaan isla tufaaxna oo ku jirta tufaax asba meesha ku jirta marka sida halka kaaga muuqata filekeeni waxa ama documentiga inoo ku jira waxa inoo sameeyna layerskaasu waxay ka dhigan yihiin waxa uu ku dhisan yahay marka la isu geeyo hadhow inoo soo saaraya sawirkeena marka layerska qaabkay u shaqeeyaan waxay ka dhigan tahay waxay u shaqeeyaan qaab hierarchy ama qaab kala sareeya Photoshopka layerska marka joogto waxay u shaqeeyaan qaab kala sareeya qaabka kala sareeya waxa ka dhigan tahay markasta aad layer ku soo dartid wuxuu kor fuulayaa layerka koreeya layerkan kana ugu koreeya kan u hooseeya kaasa ku sii xiga haddana kana ku sii xiga kan baa u koreeya marka qaabka u shaqeeyaan marka waxay tahay layerskii markastoo ay kala sareeyaan oo markastoo muuqaalkoodu kala koreeyo haddii aan tusaale ahaan wax u hooseeya hadda inuu muuqdo tufaaxdaas oo meesha u hooseeya ku jirta wax ka koreeya dalada soma dalada haddaan dulgeeyo ka waran oo jiido dabcan wax ku muuqanaysa inay ka sareyso control z base meesheedu u soo laabato marka layerba layerku ka koreeyo wuxuu uga muuq og yahay ama uu ka muuqanaya markii la joogo documentiga haday kala koreeyaan layerba layerku ka sii koreeyo sida halka inoo ka muuqata muuqaal ahaan uu kusoo kormaraya marka waxaad iska hubinaysaa markasta in layerku uu ku joogo qaabkii aad ugu tala gashay oo ah inuu layerkii u hooseeyay aad hoosta lagto hoos ku joogo kii uu ku arabtay in uu kormarno uu ku koreeyo waxa uu isu daba dhigaa sida caadiga ah Photoshopku layerkii u horeeyo markii u horeeyay soo galay hadda tusaale ahaan background baynu ku soo horeeyay meeshan oo ku jira backgroundkaasi waxa weeye waa layerkii u horeeyay aan sameeyno layerkaas waa kii u horeeyay kii ku soo xigay isaga wuxuu noqday tufaaxdaas meesha keenay tufaaxay soo ku xijinaya dabcan layerba layerku ka dambeeyo meesha ku soo dartay wuu ka maxaa ku raadayay ka kormarnaya hadda kana u horeeyay kana ku xigay kana keenay uu koreeya kana ka soo dibka keenay uu ka soo koreeya qoraalkaas aan ku soo darnay qoraalkii isaga inuu ka soo kormaraya dabcan marka layeradu markay qaabka ay u kala sareeyaan markaste oo ay iskor fuulaan sidii layer ahaanta ay meesha panelka kaaga muuqdaan bay iyadana u kala koreynayaan marka layerskan tusaale ahaan haddaan halkan click siiyo waxa ii dooran layerkan bartaa ka doortay marka si aan u fahanno selectionka qaabka u dooranayno waxa samaysaa Photoshopkaaga halkaas haddayna tigta saarnayn markii hore ku saaran tahay iyo haddii kale mar walba wayna ka qaadsan tahay marka si
aan u doorano layerka halka inuu ku jira layerkaas tufaaxan waana layeriska tagaa halka ka soo doortaa dan dalada u baahanahay waana isaga halka ka doortaa dan kan u baahanahay waana halka ka doortaa hadba kii aan markaa ku doorto baan kaxayn karaa wax ka bedeli karaa tusaale ahaan haddaan dalada doorto sawir ahaanteeda oo move gareeyo waxaan ku move gareynayaa dalada markaan halka ka soo doorto waa inuu move toolka wataa move toolka waa toolkan u isticmaalana wax ku kaxayno wax ku jijiidno marka move toolka dooranaysa layerka dooranaysa kadib ba move garanaysa wuu ku soo soconaya marka meesha aad deynaysa dan waa sii deynaysa waa caadi u qabanaysa tusaale ahaan layerka marka dooratid move toolka ku dooran yahay ag baa siinaysa waa jiidaysa meesha rabtid taas kugu soconaya marka layerka layerkii haddaan u baahdo ka waran inaan layerkii anoo halka ka doortay haddana aan u baahdo in aan layerkan kan ka kormariyo طبعا wax kale kuma sameeyay waxaan u baahanahay inaan soo jiido dan aan geeyo meeshaan u baahanahay geeyo salahan caleentaas haddaan korka rabo inaan geeyo halka u sareysa halkaas aan geeyay dan saas layerka u kormariyo salahan waa korko inoo isku keen korsaar salahan waxaan u baahanahay tufaax oo kale centerka inoo keen tufaax markaan centerka keeno طبعا halkaas oo kale inoo dhig wax kale u baahanahay inaan dalada centerka waa taala caleentana ku soo dar centerka keen saan wax u faahno yareex oga dan kliksi marka halka waxa inoo ka muuqan kara halka waxa inoo ka muuqda wax loo yaqaanay tufaax wax ku sixiga daladii wax ku sixiga caleentii dan wax ku sixiga tii qoraalka ah qoraalkii iyo daladii caleentii caadiga ahayd iyo daladii caadiga ahayd intiiba way isku dulbeegay wayna kala koreeyaan haddaan layerka u hooseeya hor soo marinayo waxaan u baahanahay isagan qabanaya dan waxaan geynayaa meeshaan u baahanahay inaan geeyo sii deynaya click tusaale ahaan waa u kormariyay haddaan hoos u celiyo ka kormariyo qoraalka dalada ah qoraalka soo baxay oo dabcan uu ka hoos maray haddaan sii wado wuu ka sii hoos maraya haddaan sii wado kan buu ka sii hoos maraya marka waxa sameynaysa mar walba aad u baahan tahay inaad layer ka haysid ama position ka haysid just waxa sameynaysaa waad move garanaysaa saas wax ku move garanaysaa failka wax ku move garanaysaa mouse-kaaga dhaba siinaysaa gacanta ujeedada way qabatay oo kale waad waysa marka meesha u baahan tahay buu sidaysa halkaas kale geey dan u baahan inaan dalada kormariyo idan halkaas geey dan u baahan inaan caleenta kormariyo dhaba siinaya idan halkaas geynaya meesha u baahan geynaya sideynaya dan u baahan qoraalkii waa inuu ku hoos maray ma muuqdo meesha ka muuqdo waxaan baahan isaga inaan click siisid dan aad geysid meesha aad baahan tahay caleenta ka kormarisaa طبعا afarteen layer meeshan uu ku jiray si caadi isu daba yaalino si wax isu daba yaalin oo ay mid walba ku muuqan karo oo ay u kala hooseeyaan hierarchy caadiga marka layerada markay saa ku kala koreeyaan photoshopka markii la joogo layerska waxay isticmaashaa layer tape oo layer tape kaas waxa ka dhigan tahay qaybaha layersku ay u kala baxaan kuwaasoo adiga aad ku dari kartid inta nooc tape ama aad ku dari kartid layerska ku soo dirsan kartid tusaale ahaan hadda filekeena wax ka kooban yahay laba layer oo qura laba layer macnaha laba layer oo kaliya kama koobna laakiin laba nooc kooban yahay oo layer ah labada nooc waxay ka dhigan tahay raster layer oo kaas layeradaas raster layerka ah oo waxa la yiraahdaa raster layers waa layers ay sidoodii markii hore ay ahaayeen laga soo raray smart object markuu hore ku yimaada layerka markii la keeno laakiin markii laga bedelo oo stage-ka laga soo kaxay wuxuu noqdaa raster qaabka loo raster gareeyo waa arki doonaa wuxuu kale ka kooban yahay wax loo yaqaan tape oo iconkaas icon tida ay u taagan tahay marka layerka wuxuu ka kooban yahay laba maxaan ku raahday qaybood layerka caadiga tusaale ahaan haddaan joogno textiga oo kale halka waxa qoran dalad ba ku qoran waa meesha ay ku qoran tahay layer magaciisa meesha uu qoran yahay iyo meesha uu ku qoran yahay layer thumbnail la yiraahdo oo layerka iconkiisa uu ka muuqdo tusaale ahaan hadda tida iconkeedu waa t textiga iconkiisa waa t baan wada oo wuxuu ka taagan yahay meesha waxaas uu yahay text oo ku garan kartaa markii aad layerskaaga saa u soo dhexgashay hore ka garanaysan kaas text yahay waxa kan oo kale ku garan kartaa transparency-ga leh waxa ku garan kartaa isagana inuu uu yahay maxaa ku dhahay raster layer inuu yahay iconkiisa soo garan kartaa sidoo kale wuxuu ku tusayaa marka icon isaga waxa uu ah isagii oo la dhex dhigay maxaa ku raahday documenti meesha uu ka yaala dhigay tusaale kan center ku yaala haddaan center ka kaxayo dabcan wuxuu tagayaa geeskaas
si fiican u fiiri haddaan gees kala geeyona gees kasta tagay marka wax icon u noqonaysa objectigii isaga ruuxiisii oo lagu aadiyay meesha uu kaga aadan yahay objectiga baa icon u noqonaya kan tusaale ahaan isagana textigaas tiidaas ah marka haddaad kor fiirisid layerka layer panelka markaan joogno halka wax kaaga muuqanaya iconadaas waxay u taagan yihiin dhammaan layer tableska aad ku dari kartid waxa loo yaqaan photoshopka layerska aad kusoo dari kartid noocyadooda tusaale ahaan hadda halka waa raster layerska oo dhan waa waxa weeye layerska pixelska kooban oo waa kale raster layerska halkaas ku jiraan waxa weeye iconka markaad click siisid waxaad kusoo baxaysa intii waxay tahay maxaa ku rahday raster layer halka ku jirta baa kusoo baxaysa haddaan kan doorto isaga waxa ku xiga oo halka ka muuqda adjustment layers meeshan kuma jiraan hadda waxa kale oo ku xiga hal text inuu ku jira haddaan click siiyo textiga unbaa inoo soo muuqanaya inta kale waa qarsoonaysaa waxa kale oo ku xiga shapes isagana oo wax allaale wixii shay halkaas soo haddaan shape kusoo darno oo shape waxa looga soo daraa waxaad tagaysaa tools waxaad ka siistaysaa shape tool halkaas waxaad kusoo daraysaa shape u baahan tahay tusaale ahaan rectangle haddaan kusoo darayo halkaas kale kusoo daraya marka shape halkaas laga soo geliya haddaan waxa kale ku sii xiga meesha ka muuqda smart object icon smart objectgaas wuxuu ka dhigan yahay wax allaale wixii smart layers halkaas inoo soo geliyaan smart layers waa layerada markii layerka banaanka laga soo geliyo tusaale ahaan markaan tufaaxdaas ka soo geliyo maxaa ku raday desktopkiga tusaale in telephone soo dhigay waa smart object waxay ka dhigan tahay waxba kama bedeli kartid ilaa aad rastrize garaysid ama oo stagekii smartki ka soo kaxaysid markaas unbaa wax ku dari kartaa ama waxa ka goyn kartaa ama colarayn kartaa marka haddii smart object inoo joogo markaan click siino wixii smart inoo soo bixin no layer smart the filter meesha ka soo qamaysa waxay ka dhigan tahay inaan wax smart object halka oo ku jirin marka iconadaas waxay ku suurtagelinayaan sida gudbi kartid noocyada ama maxaa ku rahday aad hadba marka soo saarsan kartid nooca u baahan tahay layerska haddaan hal mar wada doorto ka waran kulli ka doorto kana doorto waxay ka dhigan tahay macna kulli way wada dooreen taa waxa la mid ah in hal mar ka wada qaado kan ka qaado kana ka qaado kana ka qaado kana ka qaado kaasna ka qaado waxay iisoo wada saartaa wax laala xilliyeed meeshii ugu jiray oo waa isku mid in hal mar wada saaro waxaan ku dhahay wada doorto in hal mar ka wada qaado maxaa ku doorashada marka ii dooreen waxaan ku garanayaa highlight ba saaran isticmaal hadda kaas kala doorto waxa ay saaran pixel icon-ka haddaan doorto layerka pixelska haddaan rasterka haddaan click siiyo marka highlight madow baa saarmaysa highlightkaas wuxuu ka dhigan yahay isagoo ii doonay haddaan ka qaado dabcan layerada kale oo dhan way soo baxayaan highlightkan uu ka qaadmaya taas baan wax ku garan karaa marka maxaa raay wax kan ii dooran waxaana ii suurtagelinayaan iconada halka kaga muuqda haddaan ku celino inaad dooran kartid ama ay ku soo bixi karaan inta nooca marka uga baahan tahay in halka kaga soo muuqdo ka doorto noociisa ay soo baxay qaabkaas marka uu isticmaashaa Photoshop tableska layerska waxaad ku kala garan kartaa icon-kooda hadda si fiican u fiirisid marka dan qodobka gudbino qodobka ku xiga waxa kale muhiim ah qofka base-ka ama asaaska Photoshop baranay inuu wax ka fahmo wax loo yaqaan layer visibility-ga oo ah layerada halkaan ka muuqdo tusaale textiga maxaa ku dhahay caleenta iyadoo sidoo kale daladaas ama tufaaxaas iyadaba waxa mid walba dhinaceeda yaala wax loo yaqaan ama icon u eg il bini aadamada isha caadiga ah haddaan click siiyo tusaalahan kan oo kale click haddaan siiyo maxaa ku icon-kaas wuu qarsoomaya marka wuxuu ku suurtagelinaya inaad icon-ka visibility-giisa soo saari kartid layerkii haddaan click siiyo layerkii visibility-giisa halkaas ka control kara haddaan rabo inaan iska qariyo textiga isagoo aan meesha ka saarin oo dhaleedin waxaan u baahanahay just inaan town maxaa ku dhahay click siiyo ma ishaas inaan icon-ka isha click siiyo marka layerkii uu jooga uu niga qarsan yahay tusaale ahaan kan oo kale caleentaas oo kale aan rabaa inaan qariyo waxaan siinaya click marka waxaad ku garan kartaa markuu layerku uu visibility-giisa caadi tahay ku muuqato oo marka horeysa layers u fiirisid inuu kaas qarsan yahay ku garan kartaa in uu ishi meesha ka maqan tahay haday ishi joogtana waxay ka dhigan tahay layerkii visibility-giisa waa on weeye oo loo jeeda tusaale ahaan kan oo kale waa loo jeeda ishi waa muuqata haddaan saaka click siiyo ishi waa qarsoon tahay dabcan isagana qarsan yahay tusaale ahaan kan oo kale waa qarsan yahay soo maaha ishi meesha ka maqan haddaan click siiyo meesha isha ku aadani dabcan isha soo baxaysa layerkiina oo soo muuqanaya layer visibility-ga marka halkaas laga control waxay ku suurtagelinaysaa inaad layerka iska qarin kartid soo saarsan kartid inaad iska qarin kartid layerkii oo maxaa ku raday ku jooga adoo aan dhaleedin inaad maxaa ku raday sidoo kale isagana aad qarin kartid layerkii waxa kaloo kaaga muuqda meesha kore layerka markaad click siisid ama layer panelka oo dhan dhameystiran markaad ku fiirisid halka wax kaaga muuqanaya wax loo yaqaan opacity
opacity wuxuu ka dhigan yahay muuqaalka shaygaas intuu yahay. tusaale ahaan hadda halkaa wax ku qoran si fiican u fiiri, boqolkiiba boqol baa ku qoran. haddaan tufaaxa doorto layerka click siiyo mar walbo aad layer dooratid isagunba wax ka bedeli kartaa. haddaan dala doorto kaasunbaa marka wax ka bedelaya la soco. marka tusaale ahaan tufaaxaan doortay, tufaaxii marka opacitygeeda fiiriyo waxaa halkaa iiga muuqda boqol inay tahay. boqol waxay ka dhigan tahay layerkaasi boqol buu muuqdaa, ama percentage u sarreeyo si full u muuqda. haddaan rabo inaan wax ka bedelo marka laba mid baan samayn karaa. inaan halkaa inta click siiyo caadi u highlight garayo ku qoro maxaan ku dhahay opacity intaan u baahanahay oo ka dhigo tusaale ahaan boqol tusaale hadda iga dhig. haddaan enter dhaho iyo inaan halkaan aan mouse-kayga ku jiido opacity wataan dhulta si fiican waxay ii soo baxaysaa mouse laba fallaar leh. labada fallaar waxay ka dhigan tahay inaad dhinaca u jiidi karo, xaggana u jiidi karo, xaggana u jiidi karo. markastoo aan xagga u jiido bidixda waxa sii yaraanaya opacity-ga, markastoo aan xagga u jiidana u badanaya. marka laba qayb u bedeli kartaa, inaad halkaad caadi qoraal ahaan u gelisid iyo inaad halkaad ka yaraysid. marka opacity wuxuu inoo suurtagelin markaan layerkan click siiyo oo opacitygiisa wax ka bedelayo waxay ka dhigan tahay muuqaal ahaan inta uu muuqanayo layerkaasi. tusaale ahaan haddaan kan oo kale doorto maxaan ku rahday wax loo yaqaano caleenta oo opacitygeeda yareeyo kasoo qaad, waxaan ka dhigay halkaasaan wadi karaa ilaa intaan raban geli karaa. inaad fallaarta soo firta halka yaraysin dabcan waa tan oo kale waad jiidi kartaa. waa isla tan bay ka dhigantaa. opacityga markastuu yaraado shaygii maxaan ku dhahday layerkii halka oo lagu qarso uu khafiifaya. haddaan konton ka dhigo dabcan click konton baan ka dhigay, see noqday wuxuu noqday layer khafiif oo dabcan wax ka sheela arki karo soo maha. tusaale ahaan haddaan koonaha geeyo waa loo jeedaa oo halka ka toos kuugu muuqdo tufaaxdii casayd. haddaan dalada korkeeno dalada way muuqataa. haddaan caleentaas tufaaxda korgeeyo isagana waa ii muuqataa wixii ka hooseeyey. haddaan kordhiyo ka waran opacity layerkan oo isaga ii dooran yahay dabcan si fiican buu soo muuqanay. opacity wuxuu kuu suurtagelinaya inaad yaraysid muuqaal ahaan intuu yahay. tusaale ahaan haddaad watermark u baahan tahay inaad backgroundka gelisid shay ama maxaan ku dhahday marka adoo shahaado sameynaya ama wax kale ama wuxuun sawir kale oo u baahan tahay inaad sawir backgroundka gelisid, waxaad u baahan tahay layerkaaga inaad hoos geysid. intaad hoos geysid meesha hoos tegaysid markaas oo kale aad opacitygiisa yaraysid marka si uu backgroundka kugu galo isagoo khafiifa. marka waxyaalaha uu opacity noo qabtay kamid ah. opacity-gana qaabka loo yareeyo waa aragnay wax weeye inaad intaad dooratid maxaan ku rahday layerkii kadib halka opacity ka yareyn kartid. opacity marka qaabka loo isticmaalaa. waxa kaloo isagana muhiim ah qofka base-ka inuu fahmo isaga loo baahan wax loo yaqaan transparency-ga. transparency waxay ka dhigan tahay meel bannaan. marka meel bannaan Photoshop markaad joogtid waxay leedahay calaamad gaar ah oo lagu garto inay meeshaas bannaan tahay. tusaale ahaan documentigeena wax u hooseeya layerka u hooseeya wixii background soo background waa meesha cad inoo haysa maxaan ku rahday muuqaalka documentigeena. haddaan visibility-geeda off ka dhigo ka waran qariyo waxaa ii soo baxay meel yaroo ay ku qoran tahay maxaan ku dhahay batten camal oo cadaan iyo gray cadaan wax isku yar badan oo soo laalaabanay. kan haddaan sii qariyo isagana sidoo kale kan sii qariyo kulli haddaan wada qariyo maxaa ii soo baxay waxaa ku soo baxaysaa meeshaas square-ka badan cadaanka iyo grayga leh oo isku dhex yaacsan. meeshaas markii Photoshop la joogo waxay ka dhigan tahay transparency wuxuu ka dhigan meel bannaan oo zero nothing wax ma yeelan halkaas. haddaan save gareeyo oo saa ku save gareeyo file-kayga hadhow waxaa ii soo baxaysa intaas iyo intaanoo cad haddaan xataa ma haddaan marka dhigan tahay background cad meesha saaran way laakiin iyada baa color ay soo baxaysa caddaan lahayn madow lahayn waxba dhex online macna. marka transparency wuxuu ka dhigan yahay waa zero nothing wax ma yeelan halkaas waa empty boqolkiiba boqol waa empty. tufaaxa marka isaga visibility-ga soo celi visibility-ga tufaaxa marka inta tufaaxa ku aadan ma inta kale waa transparency halkaasna waa ka arki kartaa meeshan waa ka arki kartaa. marka calaamad transparency-ga ama meesha bannaan ee waxba online wax weeye square-ska yarka isdhaafsan ay square-ka grayga iyo cadaanka isku dhex jira ee isku yaacsan baa wuxuu calaamad u yahay ama inuu tusinaya in meesha transparency tahay. transparency-na waxaa nira wax weeye meel faaruqa waxba online. transparency qaabkaas u shaqeeya. isagana waxa kale muhiim ah inaan fahanno wax loo yaqaan marka layer cusub soo daray ka waran. haddaan rabo layeradaas intaas ay ugu jirta mid baan rabaa inaan ku soo darsado ama layer dheeri waxaad samayn kartaa inaad file caadi u soo gelisid oo markaa isagu layer gaar kuu noqdo ama aad layer cusub samaystid. layer cusub soo samayn karaa waxaan tagi karaa halkaasaan click siin karaa marka new layer way soo baxay layerkii
oo meel banaan ah waxa muuqata macna layerka banaan bay subax transparency hadaan tiro ka waran marka waxa muhiim ah in qofka mar walba uu ogaado oo fahansan yahay layerka meesha aad ku abuuraysid inaad si fiican u fiirisid waxa uu ku abuurmayaa kii marka ku dooran san hadaan caleenta doorto caleenta korkeedu ku abuurmaya hadaan background-ka doorto background-ka korkeedu soo galiya hadaan background-ka doorto aan click siiyo waxay soo baxaya halka meesha ka korayso layer ku abuurmaya marka waxa muhiim ah mar walba iska fiirsi meesha layerka aad ku abuuraysid hadaa halka u baahan tahay labada dhex galisid inaad kan hooseeyo dooratid uu ku kormaro oo labadaas ku dhex galo hadaan halka u baahan ayadana inaan rabo inaan kan kormariyo layerkii aan rabo hadda marka inaan ka kormariyaan doonaya kan oo kale aan doonaya dan new baan leeyahay halkaas layerka iga soo galiya waxa kale oo layerka ka abuuri kartaa inaad halkan furtid dan aad ka dooratid new layer oo option kale oo aad ka abuuri kartid hadaa u baahan tahay inaad shortcut ahaan u abuurtid waxa u baahan tahay meeshii aad rabtid inaad dooratid kadib aad tiraadid control shift iyo n isla qabatid waxa ku soo baxay layerka magaca u bixin lahayd hadaad bila magaca ama layerka iska default-ga gelisid okay dhahdid layerka ku abuurmaya waxa uu abuuri kartaa inaad halka ka dooratid inaad meesha soo furtid oo saa ku samaysid oo maxaan ku raadayay meesha ku soo dhexgelisid iyadana waxa weeye waxay ku suurtagelinaysaa saddexda ama aad dooratid wax loo yaqaan shortcut ahaan u abuurtid control shift n hadid control shift n kadib ay ku soo baxdo meesha magaca gelin lahayd markaad dan aad magaciisa gelisid layerka oo aad saa ku abuurtid saddexda qayb ka abuur kartaa marka layerka mar walba abuurisid meesha ku abuurisid waa inaad iska hubisaa oo doorataa tusaale halka hadaan rabaa inaad abuurto halka ka abuuro waa inaad halka geliyaa kaas ku hormaraya marka waa inaad ku dooran tahay meesha layerka ka abuuraysid kadib aad layerka abuurtaa steps-kaas aad martaa si aad layerkii booskii saxnaa ee ugu tala gashay uu kugu soo galo waxa kale muhiim iyadana inaad fahantid layerska waxay ku shaqeeyaan Photoshop isticmaasha wax loo yaqaan laba layer tusaale ahaan in la isku xiro oo link loo sameeyo hadaan u baahdo ka waran inaan isku xiro dallada iyo caleenta aan ka dhigo markaan maxaan ku raadayay caleenta move gareeyo in daldan ay raacdo aan hal mar wada kaxayay noqdaan wax wada socdo si caadi wada socdo aan kala harayn waxaan u baahanahay marka inaan labada layer isku xiro qaabkan isku xirayo waxa dooranaysaa layerka u baahan tahay inaad layer ku xirtid dan waxa qabanaysaa shift layer kale ku xiraysid baad dooranaysaa isagana shift adoo haya tusaale ahaan waxaan isku xiraynaa caleenta iyo dallada caleentaan dooranaya kadib waxaan dooranayaa dallada anoo shift haya waxaan click siinaya dallada labada layer markay saa igu doonayeen waxaan siin right click baan siinaya right click waxa markaan click siiyo waxa soo baxaya meeshaas maxaa kale options ka tirada badan leh optionskaas waxaan ka dooranaya marka link layers markaan click siiyo طبعا si fiican u fiir waxa soo baxa waxa soo baxaya waxaad moodid silsilad meel isku madax isku jirto marka ala iconkaas wuxuu ka dhigan yahay inuu labadaas maxaa ku dhahay layer isku xiran yihiin hadaan move gareey ka waran midkood tan kan oo kala doortay waa kaxay kiga waa raacay dabcan sababtu i raacayna waxay tahay dabcan ana isku link gareeyay oo inta right labadii mid doortay dan marka aan link layers ka sii doortay oo qaabkaas aan ku samaystay inay soo ka xirmaan hadaan rabo inaan ka qaado ka waran midkood baa dooranaysaa right click siinaysaa waxaad leedahay unlink layers uu kala furaysaa layerski oo sidii caadiga ah hore mid walba gooniis u soconayay buu markaas ugu soconaysaa qaabkaas baa laba layer la isku xiraa oo loo isticmaala Photoshop waxa kale oo isticmaashaa ama layerska markaan joogno muhiima tusaalahan shaqo badan baa qabanaysaa document halkan oo furan waa aad u kooban yahay aad buu kooban yahay meesha wax kooban yahay isaga dhan wax kooban yahay waa 4 layer ama 5 layer waxaan saa uga badnay hadii ka waran aad qabatid shaqo tira badan oo maxaan ku dhahday layers tira badan leh oo kuwa wada socda kuwa maxaan ku dhahday isku wax soo saaraya oo kuwa gaar wada socda kuwa ka wixii ay tira bataan waxa muhiim ah iyadana in isticmaal taqaan wax loo yaqaan grouping waxay ka dhigan tahay inaad laba layer ama dhowr layer oo ka badan maxaan ku dhahday hal layer aad group gareyn karto isku koox ka dhigi karto hal meer folder wada gelin kartid marka qaabka u group gareynaysa waxay tahay layerradii baad dooranaysaa tusaalahan kan oo kale aan doortay kana waxaan kaloo qabanayaa shift aan qabanaya kana waan dooranaya kana waan dooranaya saddexda layer marka ii doonay waxaan rabaa saddexda inaan group geliyo waxaan qabanaysaa control shift control G baa qabanaysaa control G shift lama socoto control G waxay ka dhigan tahay saddexda layer group gareeyay wada socdaan qaabkaas wada socdaan ka waran hadii aan qaab kale isticmaalo waxaan tagi karaa meeshaan u baahanahay layerka inaan group ka abuuro tusaalahan kan oo kale doortay waxaan tagayaa grouping
ama folderkii halkaas groupkaaga muuqda click baa siinaysaa groupka ku abuuraya marka waan furan yahay marka groupkii si aad ugu ururisid layeradaada kan soo jiid dhexgeli kana soo jiid groupka ku dar kana jiid ku dar qaabkaasna waa abuuri kartaa inaad groupkii halka abuurtid kadib aad layerada ku ururisid oo ay saa ay kugu dhex jiraan maxaa ku raadin groupyada halka kaaga samaysan yihiin waxa kaloo isticmaali kartaa inaad intaad halka meeshaad groupka abuurisid tusaalahaan oo kale intaad tagtid halka tagtid aad markaa ka soo dooratid wax loo yaqaan new group then group magac u bixisid oo halka ku soo gelisid haddii aad halka ka abuurtana magaca klik un baa siin kartaa halkaas ka abuur kartaa group 1 halkaas magaca rabtid uga bixin kartaa marka si aan isagana u gelino maxaan u baahnaa inaan jiidno oo ku dhex ururino kulli ku ururi kana ku ururi kana saa u geli qaabkaas loo group garaya layerska inaad shortkadan isticmaashid control G isticmaashid inaad isticmaashid maxaa ku raadaya halka tagtid oo markaad ku urursid halka tagtid then ani group ka dooratid qaabkaas group loo abuuray ka waran haddaan u baahnaa inaan maxaan ku raadaya furfuro groupyadii caadi oo ka dhigo sidoodii hore waxaan qabanayaa control shift iyo G intaan groupkii isaga doorto isaga baan dooranaya tusaalahaan groupkan doortay then waxaan qabanayaa control waxaan la qabanayaa shift iyo G caadi u furmay marka waxaan layer meeshiisu tagayaa oo wax noqonaya maxaan ku raadayay individual wax taagan caadi oo layerkii si gooniyaan inna ku xirnayn group ku jirin oo link mid ku jirin qaabkaas marka groupka loo isku daraa oo loo furfuraa grouping marka wax ku suurta gelinaya inaad layerada tirada badan marka shaqada badnaa qabatid tusaale ahaan oo kale layer badan leh oo in wax laga yaabo 100 layer iska fuulan marka inaad shaqada fudaysatid oo isku dartid tusaale ahaan hadaan kan oo kale iyo kaas labada group ka dhigo labadana group ka dhigto caleenta iyo kaas saas shaqada soo fududaanaysa oo maxaa rabay groupkii layerskii tirada badnaa dheera hoos dheera waa soo ururayaan oo groupyada geliyaan qaabkaas marka ay kugu faa'iideynaysaa inaad grouping isticmaashid waxaagii wax si koox u wada socota ka dhigtid grouping waa very useful inaad fahansan tahay wax weeye very base weeye macnaha wax weeye wax asaaska Photoshopka layerska marka lagu shaqeynayo ay ku fududaanayso markasto aad fahansan tahay qaabka wax loo group gareeyo ama qaabka layerada la isku link gareeyo in shaqadaada ay fududaanayso waxyaalo badan waqti badan ama ku save gareeyo qaabkaasana loo group gareeyaa layers markaan joognana intaas base inaad layerska select gareyn kartid qaabkaad isku kormarin kartid inaad group gareyn kartid inaad link sameyn kartid oo waxyaalaha base ah inaad layer tabeska fahansantahay iyadana waa very important marka muuqaalkeennii aan uga hadlaynay layerska Photoshop markaan joogno intaas ayaan kusoo gabagabayn doonaa muuqaalka ku xiga wax kaga hadli doonaa common file tabeska ama maxaan ku raadayay wax loo yaqaan tabeska fileka marka la save garanayo loo isticmaalo oo ah kuwa guud ama kuwa maxaan ku raadayay sida common ka badan la isticmaalo waa arki doonaa waana iyo kuna damo xiiso leh